madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa mar kale xaqiijiyay taageerada buuxda ee dalkiisu u hayo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya kadib kulan rasmi ah oo uu kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Ankara. Kulankan oo Khamiistii iyo maanta ah ka dhacay xarunta madaxtooyada Turkiga, madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan wuxuu si cad u muujiyay sida ay dowladda Turkiga uga go'an tahay nabadda, wadajirka dhuleed iyo horumarka dhaqaale ee Soomaaliya. Erdogan ayaa arabka ku adkeeyay in Turkigu si gaar ah u daneeyo xasiloonida Soomaaliya, isla markaana uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo nabadda waarta iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed. Waxaa la xasuustaa in Turkigu muddo dheer saaxiib dhow la ahaa Soomaaliya, isaga oo ka taageeray dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin gargaar bani'aadanimo, tababarka ciidamada iyo mashaariic horumarineed. Madaxweyne Erdogan wuxuu hoosta ka xariiqay in taageerada Turkigu ay tahay mid joogto ah, loona fidiyo iyadoo la tixgelinayo madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay waaxda isgaarsiinta ee Turkiga ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay isla soo qaadeen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Erdogan wuxuu mar kale ku celiyay in Turkigu garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha xagjirka ah ee dalka ka jira. Turkigu wuxuu sii wadi doonaa taageerada uu fidiyo Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah argagixisada, ayuu yiri Erdogan, isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta amni ee labada dowladood. Marka laga soo tago arrimaha amniga, labada madaxweyne waxay sidoo kale diiradda saareen xoojinta iskaashiga dhaqaale, ganacsi iyo warshadaha difaaca. Erdogan iyo Maxamuud waxay ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa fursadaha ganacsi ee u dhaxeeya labada dal iyo sidii looga faa'iideysan lahaa waayo aragnimada Turkiga ee dhinacyada horumarka. Waxaa xusid mudan in Turkigu door muuqda ka ciyaaray horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, caafimaadka iyo waxbarashada Soomaaliya. Kulankan ayaa sii adkeeyay xiriirka istiraatiijiyadeed ee labada dal u dhaxeeya. Kulankan heerkiisu sarreeyo wuxuu sidoo kale qayb ka yahay istiraatiijiyada Turkiga ee ku wajahan Afrika, taas oo diiradda saaraysa ballaarinta xiriirka diblomaasiyadeed, dhaqaale iyo amni, iyadoo xoogga la saarayo xasiloonida gobolka iyo Geeska Afrika.